halkan maanta waxaynu ugu xafladayn doonaa ardaydeenii imtixaankii yaraa imtixaankiina waa 3 teeram teeramkeenii hore imtixaankii 200 ee darajo ahaa imtixaanka 3 qaybood baynu kala qaybinaayo waa first term iyo mid term inta first term baan isku nidaahnaa laakiin 2 qaybood baa loo kala qaybiyaa labadeena qaybood aynu kala qaybinay natiijadii ardaydu wixii ay ka keensadeen dhammaan 900 ilaa 1000 arday oo iskuulka dhigta wixii galaas walba ardaydii 16 galaas ee iskuulka kooban yahay 16 arday ee ugu sareeyay ayaynu maanta halkan ugu xafladayn doonaa xafladeena de ardaydu hadii la barotamo lama wada dheereeyo ma wada dheereeyaan ardaydu laakiin haday galaas noqoto iyo haday iskuul noqoto ardaydu waa dadaalaan waa kala dheereeyaan maanta ardaydeenu halka ugu xafladaynaa waa 16 arday 16 ka arday waxaynu doonaynaa aynu ma sha Allah badina insha Allah hadii la hayra way ma sha Allah waxay bedeshaa ama waxay ilaalisaa isha ayay ilaalisaa marka aynu insha Allah ardayda aynu xafladaynayno waxa la rabaa inaynu si wanaagsan aynu soo dhaweyno inaga laakiin maxay noo yaala ardaydu 16 kan ma aha 16 kan waa 16 kii arday ee dheereeyay 3 arday oo kale galaasii aqoonta ugu wanaagsanaa ardaygii gudoomiyaha ugu wanaagsanaa iyo monitorkii ugu wanaagsanaa 3 arday oo aanu inta iyagana aanu soo xulnay waa 19 ardayduna halka wax xafladaynayna marka waxa la inaga rabaa horta waxa la yiri marka waxbarasho laga hadlayo dhammaan ardaydu nin walba maskaxdiisu way fiican tahay arday aan maskaxdiisu wanaagsaneyn ma jiro dhammaan waxa la doonayaa 16 ka arday horta inaan ku dayano xagga aqoonta inaan ku dayano malaha dadkeenu had iyo jeer imiga halkan waxay noo yaala koob bay noo yaala koobka micnihiisu arday baa soo dadaashay iskuulka kamida koobkaana way soo qaadeen talow laakiin qaabka lagu soo qaaday ma arday iska fadhiyay oo maanta uu intu funaanadii iyo surwaalkii xidhay garoonka galay baa talo koobkan soo qaaday maya ardaygaasi wuu soo hafta baxay gudoomiyihii tababarihii intaaba waa maxay waa la soo dadaalay waa maxay aad bay u soo dadaaleen ardayda noocaasi koobkan soo qaaday de way dadaaleen oo iskuulkii bay matelayaan magaca Nuuridiin Schools bay matelayaan gaar ahaan iskuulkan aynu maanta fadhinay matelayaan gaar ahaan galaaskii ay ka soo baxeen bay matelayaan haddaba aqoontuna waa saasoo kale talo ardaydan maanta guuleysatay miyay iska fadhiyeen miyay habsaami jireen iskuulka talo qaabkay uma jireen iyaga laftooda wax la doonayaa inaad ku urgasho tiraada ardaydaas sidee u guuleysteen marka waxa la rabaa dhammaan horta waa guusha qof walba waa jecel yahay hadii la yiraahdo maanta hebel ba wax noqday waa kaanu habrowdaaga hayn baad odhanaysaa waa kaanu ilmaabtiga hayn baad odhanaysaa guusha wadata inaad macla noqoto laakiin qofka haduu feel garoobo qof walba uu ka dhacaa dhammaan waxaanu rabnaa ardaydiina kale imtixaankani waa imtixaan yar oo baraarujina laakiin qiimeynta guud ee iskuulka daw gala oo natiijada imtixaanka uu ku galaya marka waxaanu rabnaa war arday waxa laga rabaa inaad waalidka ka farxiso waxa la rabaa inaad macallinkaaga wax ku baraya aad ka farxiso waxa la rabaa inaad maamulka kugu soo tabcay inaad ka farxisaa la rabaa oo maanta marka natiijadaada la yeedhinayo yacni waalidkuna uu habi ku noqdo natiijada aad keenayso marka waxbarashadu waa 3 qaybood qayb waa marxaladda hore qayb waa marxaladda dhexe qaybna waa marxaladda ugu dambaysa haddaba 3 qaybood laftooda ayaa sanad dugsiyeedka internet ku jirta kamida hadii aynu nidhaahno waa maxay arday waxbarashada iyo tacliintii loo dhigay buu ku dadaalay dabadeetana markuu aqoontii si fiican u soo xaadiray ee uu si fiican u dhageystay ayuu dabadeetana haddana ku xigsiiyay inuu akhriyo oo casharadii raaco imiga garoonka marka la gelayo 3 qaybood baa laga kooban yahay waa qayb difaaca waa qayb dhexa waa qayb weerara aqoonta lagu dhigaya yacni waxay ku fiican tahay aqoonta lagu dhigayaa
marka aad akhrido marka aad wixii lagu dhigay aad ka daba tagto yacni waxaad noqonaysaa nin garoonkii difaacanaya muraajacadiina waa dhexda weerarkiina waa marka imtixaanka aad gashay natiijo fiican keentay goolkii baad dhalis marka waxaynu rabnaa in sida ardaydaasi ay u dadaaleen inaguna aynu u dadaalno insha Allah hadii la hayraa marka imtixaankeena soo socda imiga waxaynu qaadi doonaa ama inoo bilaabmaya imtixaankeeni labaad kani maanta waa kii hore inuu u xafladeynaa keena dambe laakiin wuxuu inoo bilaabmaya insha Allah hadii la hayraa 6 bisha 12aad oo maanta inta bisha ka hadhay inaga xigto arday walba inaad baraarugtaa loo baahan yahay inaad fadhiga ka kacdaa loo baahan yahay dhammaan insha Allah hadii la hayraa imtixaanka dhexe ee midteeramka ah in natiijadeenu noqoto kunka arday inay dhibcaha yacni waa maxay farcidiyahood ku kala baxaan hadii la hayraahdo marka hadalka dheerayn maayo dhammaan ardaydu waa maxay horta ardayda guuleysatay hambalyaanu leenahay ardayda guuleysatay hambalyaanu leenahay ardaydaana insha Allah hadii la hayraa waxaynu doonaynaa in maamuus bay leeyihiin ardaygu markuu badiyo marka uu waxbarashada ku dadaalo waa ardayda koobka soo qaaday oo kale la mid yahay galaaska wanjii la yiraahdana isaga dhinaca isboortiga marka la eego tacliintu yacni meel kala duwan waa qaybo kala duwan tacliinta lafteeda waa kamid maxay ahayd koobkan la soo qaadaya waa kamid ardayda soo qaaday koobkana insha Allah hadii la hayraa sawirro qurux badan bay yeenu ka qaadi doona maanta gudoomiyihii baa jooga tababarihii baa jooga iyaga laftoodu guul bay soo qaadeen iyaga laftooda waxaanu doonaynaa arkiifiyada iyo sawirrada iskuulka way galaysaa waa sanadkii ugu horeeyay iskuulka la furo ee uu koob waxbarasho soo qaado haddii sidaa loogu tirtami lahaa waxbarashadana oo dhammaan dadka oo dhan laga tirtami lahaana waxaan qabaa sidaa koobkaba loo soo qaaday inaynu waxbarashadana u qaadayno marka insha Allah hambalyaan leeyahay ardayda hambaliyo hadalka sii badin maayo kulli waa layga dambeeyaa waxbarashadii iyo waa xiisadiina waa in sugayaan marka insha Allah ugu maanaan talagelin maanta marti kale laakiin inaga isku filan haday tahay maamulkeeni sare haday tahay way maamulkeeni iskuulka haday tahay macallimiinteeni haday tahay waalidiin dhammaan waa ardaydaas in maanta wax xafladeynaa hadalka insha Allah hadii la hayraa badin maaye waxaan ku soo gabagabeynayaa war ardaydaasi waa tusaale ha lagu daydo ardaydaasi waa tusaale ha lagu daydo insha Allah hadii la hayraa